السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت لي وإذن سلامي وحيدين سلامي سلامتي سلامك وحيدين لي كسور دوادا رمالا كوكين channel halkan waxaan rabaa inaan idin la wadaago sandwich aad u fudud oo ana maaragtaya aan dhib lahayn halkaas waxaa ku haystaa cheese bakerka loogu talagalay American cheese iyo salami waa chicken la diyaariyay oo saas loo gadaa waxay ku xiran tahay bac iyo xabada ukunta in yar cusbo ah insha Allah intaas isku sameyneynaa hadan digsiga waxaan ku shubanaynaa olive oil in yar oo olive oil ah waa dabka inuu daaran yahay digsigana uu inoo kulul yahay waa ready waan sii daaray marka saliida markii saas digsiga dhan u gaarto insha Allah waxa haatan ku ridanaynaa ukunti ma qasayo oo maaragtaya direct waxaan rabaa inaan digsiga ku rido ma garaacay marka inay sideeda ahaataan doonayaa waxaa kasoo bixi doona sandwich aad iyo aad u macaan badan insha Allah haata cusbada korka kaga dareynaa in yar cusbo ah cusbada waa in yar ma badna insha Allah hadba qiyaastaada kale waa xabad ukun inta ku darsanaysid aad taqaanid insha Allah kadibna waxaan sameyneynaa waa rogayaa ukunta insha Allah markaan rogo waxaan saarayaa cheese iyo salamiga ayaan saarayaa salamiga waa digaaga oo la soo warshadeeyay oo ready ah waxaa ku jiro waxay ku soo shiideen barbarooni gaduudan marka wixii dhan uu wataa cusbadiisa iyo cheese-tana waxa waaye cheese Americanka dhadhan leedahay oo bakerka la saarto marka yani ma u baahna ukunta cusbo badan uma baahna intaas ku filan insha Allah waan rogeynaa kadibna cheese-ta saaran doonaa insha Allah iyo salamiga ما شاء الله ukuntii waa rognay haatana waxaan saaranaynaa ukunta cheese ayaan dhexda marinaynaa salamiga korka ka marinaynaa marka sida uu salamiga hadhoodito yani uu cheese inay dhexda gashaan la rabaa ma la rabo inay ka daadaataan because kulkan inuu gaaro cheese sababtoo ah waxa loo baahan yahay inay yara ilaasho oo rootiga qofka markuu cunayo milmato very nice ku soo baxay insha Allah ka waa rognay salamiga xoogaa yar hadda inuu gaduuto ayaa rabnaa marka rootigana waa inuu toostiga geliyay kadibna adiga waa diyaar waa ka saaranaynaa insha Allah saas u gaduutay soo maarkay rootigii diyaar inuu yahay toosti waaye uu adag yahay yani waa soo kululeeyay waxa halkan ugu jiro waa bahalkii qajaarka la radiyay waaye marka qajaarkana aad u dhadhan ugu leeyahay sandwich-yada la saartaa ma sha Allah aad u macaan yahay dhadhan ugu leeyahay marka waxa hadana korka kaga sii shuweynaa spicy which is chili sweet spicy-ga oo macaanka ah oo sokorta lagu daray spice maxaa la dhahayaa basbaaska sokorta ku jirto oo dhanaanka ah waa ka sweet chili dhahan marka kana ku darsaneynaa insha Allah isagana wuxuu u yeelayaa dhadhan kale u yeelayaa wixii ku soo baxayaan wax kale
perfect ay kusoo baxayaan insha allah. khalaas waa diyaar. waa waxa weeye waqti badan ma u baahnid inaad gelisid runtii sandwichada ciyaalka aad xiiseeyaan u jecel yihiin. marka waxaa kaliya ka daaynaysaa markaa rabtid inaa oo canuga aad siisid maadaama kan toast uu yahay hadda ilmihii ay yar yihiin like lix wixii ka yar oo kale hadda kan toast ka dhigay qaleel lagama dhigayo rootiga asagoo oo sidiis oo yara jilacsan iyo bahashan bisbaaskan waa ka daynaysaa jiliga inta kalena ilmaha waa cuni karaan wuuna macaan yahay borotiin iyo nafaqo iyo wax walbana wuu leeyahay. marka insha allah saliidana oo liiliifa ku sameysane waa perfect insha allah. waxa waaye wax idin dhimaayo maahan. jiistan aad ay lafaha ugu fiican tahay inkastoo oo yani in laska badiyo fiicneen laakiinse it's good you have to inaa cuntid qofka biniaadanka inuu jiis iyo caano iyo qaato asagay u fiican tahay. waxaa halkaas noogu jiro waa strawberry oo biyo oo falafel yani dhadhan oo strawberry leh ayaa noogu jiro halkaa. marka sokor iyo waxba ma laha iyo waa ka koobka noogu jiraa markaa cabtid qaboob waaye marka yani xoogaa wuu yara macaan yahay laakiin very perfect waaye haddaa isku cuntido maasha allah inaba caadi ma ahan. waa idin salaami dhammaantiin waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.